wararka raadiyaha iyo TV-ga Maandeeq anigoo Cabdulqaadir Onasiya waan idin la socodsiin qodobada aad ku maqli doontaan waqtigan waxa kamid ah kulankii farmaajo iyo Kenyatta magaalada Nairobi ku dhaxmaray oo is-afgarad la'aan ku dhamaaday madaxweynaha Somaliland oo ka qayb galay ansixinta xeerka garyaqaanka guud ee Somaliland Soomaaliya oo qaramada midoobay u gudbisay qoraal jawaab u ah beentii ay Kenya ka faafisay maydka gabar Soomaali ah oo laga helay magaalada California ee cariga Mareykanka iyo Soomaali qayb ka ah doorashada dhawaan la filayo inay ka dhacdo dalka Holland magaalooyinka tirsan Ethiopia banaanbaxyo ayaa ka dhacay xildhibaanad Mareykan ah oo shaacisay in uu kufsi u geystay sarkaal ka tirsan ciidamada Mareykanka qodobadan iyo kuwa kaleba iyagoo faahfaahsan gordhow filo tabiyahana waa aniga Cabdulqaadir Onasiya ku soo dhawaada wararka iyo barnaamijyada TV-ga iyo raadiyaha Maandeeq haasahaatee ugu horreyn aan ku bilaabo wararka ka imaanaya dalka Kenya ayaa sheegaya in kulan dhawaan ay ku yeesheen magaalada Nairobi madaxweynaha Soomaaliya iyo midka Kenya oo wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa waxa uu tibaaxay in kulankii Kenyatta iyo farmaajo ay ku yeesheen magaalada Nairobi dhamaaday is-afgarad la'aan iyadoo jariirada xustay in waxa heshiisa aan laga gaarin kulankaasi labada dhinac oo ku dhexdhexaadinayay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed inta Daily Nation ay arintan kaga hadlaysay ayaa sheegtay in waxba aysan ka jirin warar ka soo baxay filla Soomaaliya ee ahaa in la isku raacay in dib loo soo celiyo xiriirkii diblomaasiyadeed ee labada dal lana soo celiyo safiiradii la kala qaatay waxa taa cadeen u ah qoray wargeyska xaqiiqda in Kenya aysan wax war ah ka soo saarin kulanka isla markaana uusan jirin war murtiyeed si wada jira loo soo wada saaray warbixinta ayaa sheegtay in kulanku uu ku dhamaaday ismarin waa iyada oo labada madaxweyne mid walba uu ku adkeystay mowqifkiisa gunaanadkiina waxa uu tilmaamay in Soomaaliya ay ku adkeysatay in dhulbadeedka lagu muransan yahay ay go'aan ka gaadho maxkamadda caalamiga ee cadaaladda halka Kenya ay dalbatay in meel ka baxsan maxkamadda xal lagu gaaro labada dalna ay isku raacaan oo ay ka wada hadlaan dhinaca kale qaramada midoobay ayay dawladda Soomaaliya u gudbisay qoraal jawaab u ahaa beentii ay dhawaan ka faafisay iyadoo dawladda Soomaaliya dalalka xubnaha ka qaramada midoobay u gudbisay warbixin ku saabsan xiisadda Soomaaliya iyo Kenya ee badda isla markaana jawaab u ah beenta ay Kenya faafinayso qoraalka ergada joogtada ee Soomaaliya ee qaramada midoobay oo heshay TV-ga Maandeeqna uu kamid yahay ayaa dalalka caalamka loogu sheegay in Kenya ay dalalka caalamka iyadoo markaa u gudbinayso been ku saabsan habdhaqanka Soomaaliya ee dhulbadeedka lagu muransan yahay qoraalka Soomaaliya ayaa jawaab u ah wasaaradda arrimaha dibadda Kenya oo warbixin ku saabsan muranka badda ee kala dhaxaysa Soomaaliya kuna xaajoonaysa doodeeda u gudbisay qaar kamid ah dalalka xubnaha qaramada midoobay iyo golaha amaanka ee midowga Afrika Kenya waxa ay si aan sax ahayn u sheegtay in Soomaaliya ay iibinayso xirmooyin shidaal oo ku yaala dhulbadeedka lagu muransan yahay Kenya waxa ay sheegashadan aan saxda ahayn dalalka iyo ururada caalamiga u gudbisay 22kii Febraayo ee sanadkan ayaa lagu yiri qoraalka Soomaaliya waxa ay Kenya u gudbisay 25kii Febraayo waxa ayna ugu xaqiijinaysaa inaysan iibin isla markaana iibin doonin wax xirmooyin shidaal ah oo ku yaala dhulbadeedka lagu muransan yahay ayaa lagu yiri qoraalka kiiska Soomaaliya iyo Kenya ee muranka badda waxa uu hor yaala maxkamadda caalamiga ee cadaaladda waxaana mar kale la dhageysan doonaa September 2019 ee sanadkan iyadoo go'aankana la filayo sanadka 2020 gudahood Soomaaliya waxa ay Kenya u xaqiijisay inay u hoggaansami doonto go'aanka maxkamadda isla wararka Soomaaliya inuu ku gudo jirnay madaxweynaha Somaliland oo ka qayb galay ansixinta xeerka garyaqaanka guud ee Somaliland isagoo markaana ay kala qayb galeen madaxweynaha wasiiradiisa iyadoona khudbadii ugu horeysay ee markaa ansixinta xeerka garyaqaanka guud ee Somaliland madaxweynaha Somaliland Mr Muuse Bixi hadal uu ka jeediyay waxa uu yiri bismillaahir rahmaanir rahiim xeer baad hor yaala sadexa midwaakii garyaqaanka guud xafiiska garyaqaanka guud midna waa ka wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska wax ka bedeliya kaabis xeerarka shaqaalaha rayidka ah xeer lambar 31 2004 la
soo baxay in dib loo eego ka saddexaadna waxa weeye siyaasadda shaqaalaha rayidka ah oo isagu waa siyaasadda maaxeed waxaanu inagu soo noqnoqday maalmahan baynu hor yaalleen waa ka garyaqaanka guud oo bedelkeeda isla ogolahay in la sii daayo wixii iyada oo lagu dari doono wixii loo soo jeediyey ee ama kordhisa ama arsilaagday inuu baahan in la soco iyadoo la sixi doono oo la hubin doono wixii aa ku darteen intii ogol la sii daayo gacantaa taagto shan iyo labaatan yaa diidan ka aamusay saasuu ku ansaxay labada kale waxaan isla qaadanay in akhris loo soo wakti loo qaato wasaaraddii keentana ay sharaxaad kooban ka bixiso iyagana saasaynu maanta u dhegeysana sharaxaadda kooban ee wasaaradda soona akhri doonaa shirka dambana aynu ku gedgeli doonaa maydka gabar Soomaali oo laga helay magaalada California cariga Mareykanka Allah u naxariistay marxuumadda ayaa lagu magacaabi jiray Muna Salaad iyadoo toddobaadkan maydkeeda laga helay guri ku yaala magaalada City Heights ee gobolka California gabadhan ayaa la arkay iyadoo sariirteeda saaran dhiig badina madaxeeda iyo wajigeeda uu ku yaalo sida ehelada marxuumadda ay sheegayaan waxa dilkeeda lagu tuunsan yahay saygeedii ifraax salaad oo ay walaalo ahaayeen marxuumadda ayaa warbaahinta la hadashay waxayna tiri Soomaali qayb ka doorashada gobolada dalka Holland isla markaana laba dhalinyaro oo Soomaali oo ku dhaqan dalka Holland laguna kala maqaabo Nuur Ikar iyo Xamdi Cabdiraxmaan Garjeex oo labaduba yaran ku tagay dalkaasi horaantii 90meedii isla markaana ka kala tirsan xisbiyo kala duwan ee dalka ayaa u tartabaya doorashada gobolada dalka Holland oo lagu wado inay dhacdo 20ka bishani labadan musharax ayaa kala mathalaya xisbiyada Denk iyo Nid oo xisbiyo ay muslimiintu leeyihiin xisbiga Denk ayaa dhawaan xildhibaan ku leh golaha shacabka Holland halka ay labaduba dawladda hoose ee Hague iyo Rotterdam xubno ku kala leeyihiin gobolada koonfurta iyo waqooyiga Holland oo magacyada gobolada ugu caansan dalkaasi isla markaana ugu dadka badan ayay ka mid yihiin magaalooyinka Amsterdam Hague iyo Rotterdam weeyaan halka ay labadan dhalinta Soomaalida ay musharaxiinta ka yihiin magaalooyinka tirsan Itoobiya oo banaanbaxyo ka dhacay iyadoona dhowr magaalo oo ka tirsan dalkaasi ayna ku badan yihiin dadka Oromada dalkaasi ay ka dhigayaan banaanbax ay kaga soo horjeedaan in maamulka Addis Ababa uu qeybiyay isla markaana la iibiyay kumanaan guri oo iyagu sida ay sheegeen aysan ku qanacsanin habka ay dawladdu u maareysay dadkan Oromada ayaa 3 meelood ka bulshada Itoobiya mudaharadeeda noocan oo kala ayaa ka bilowday dib u kala xadeynta magaalada Addis Ababa iyo gobolka Oromada qorshadahaas ayaana markii dambe laga laabtay iyadoo banaanbaxyadana ay ku soo aadayaan xilli uu dalkaasi uu rasaawara ka yahay Abiy Ahmed oo mid ka soo jeeda qoomiyadda Oromada mas'uuliyiinta gobolka Oromada wali kama aysan hadlin arintan cabashada ay dalkaasi isugu soo baxayaan xildhibaanad shaacisay in uu kufsaday sarkaal ka tirsan ciidamada Mareykanka xilli ay iyadu markaa ka tirsaneed xildhibaanadan oo iyadu hadda aqalka sanadka ee dalka Mareykanka ka tirsan ayaa waxa ay sheegaysaa inuu kufsaday sarkaal ka sareeyay markii ay ka tirsaneed ciidamada cirka Marthy McSally oo ahayd gabadhii u horeysay ee duulisa diyaarad ay ciidamada Mareykanku leeyihiin oo dagaal kula jirta ayaa hadalkan ka sheegtay iyadoo la dhageysanayo xog ku saabsan tacadiyada galmada ee militariga dhexdii ka dhaca gabadhan oo iyadu laga soo doorto Arizona kana tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa sheegtay inaysan arintan shaacinin iyadoo dareemaysa wajigabax isla markaana aan ku kalsooneen hanaanka lagula tacaalayay arintaasi dacwooyinka tacadiyada galmada la xiriira ee militariga Mareykanka ayaa sare u kacay 10% xagga marka la eego sanadii 2017 xildhibaanad MCCL ayaa guddiga hoosaadka aqalka sanadka ee ciidamada qalabka sida u sheegtay dhawaantan inay sanado badan ka aamusneed arintani balse markii muddo laga soo wareegay ee fadeexooyin badan ay ka dhaceen militariga jawaab fiicanna aan laga bixin ayaan istusay ay jiri inaan u baahanahay in aan dadka qaar la wadaago wixii qabsaday waayo anigoo dhibanayaasha ayaan ka mid ahaa
hase haatee murugo badan ayaan la kulmay ayay leedahay sida loo maareyn karo macluumaadka noocanna waa midka aan rabo inaan xilligan gudbiyo warkii dunida oo dhegaystayaal aad kala socoteen tv-ga iyo weliba idaacaddayada maandeeq halkaa ayaan ku soo afmeerayaa waqtigan tan iyo kulanti dambe waa cabdiqaadir onasi oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo